gacanta anigu u dhiibay xagagarkan waan bakaraadsho astaanteedu waa mid gaariya gacanta anigu u dhiibay xagagarkan waan bakaraadsho astaanteedu waa mid gaariya xarumaha maxaayadda ee wax lagu barto ayaa sanadihii ugu dambeeyay waxay ka haran qaadeen deegaanada bariga gobolka Mudug kormeer ay ku tageen dadka taageera waxbarashada iyo horumarka deegaanada Galmudug oo markaas wax ku baranaya deegaano dhaca bariga gobolka Mudug oo ay ka mid yihiin Ceeldibir, Ceelguula, Xeerdhagaxley iyo qaar kale. Xarumahan ee wax lagu barayo ubadka da'da yar ee wax ku soo badanayaan deegaanada. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. محمد سعيد Soomaali maamulaha macadka Imaam Shaafici ayaa wuxuu ka warbixinayaa qaabka ardayda wax loo baro iyo tacliinta uu bixiyo dugsiga. waxaan joognaa kollejka Imaam Shaafici ee ku yaala magaalada Ceeldibir sida ogsoontihiinba kollejyadooyinkan waxa dhisa dadka shacabka deegaanka dad kamid ah dadka qurbaha jooga deeqa ay ku deeqeen oo ugu tala galeen in ubadka wax lagu baro diinta lagu baro maadiga lagu baro tabarucaadaas ay ku shaqeynayaan tabarucaadaas baa lagu dhisay wuxuu dhisan yahay muddo ku dhow sanad uu dhisan yahay kollejkan waxyaabaha aan ka bixino waxa kamid ah quraanka horta wuxuu u yahay focal point-ka u horeeya waa quraanka waxa ku xiga in adkaarta la baro maxaa la yiraahdaa kitaabada yararka sida caqiidada xadiista in la baro waxa kale oo barnaa maadigana qayb baan ka barnaa jadwalkan subaxii ku shaqeynaa waxa kamid ah subaxii salaadii markii la soo kaco xilli horaan soo kicinaa oo ah ilaa 9 saac habeenimo kala kicinaa oo arkaysaan leerar banaanka noogu xiran leerarkaasi waxay ku akhristaan quraankooda salaad subaxii tukadaan kadib adkaartii bay akhriyaan adkaarta inta ka dambaysa waxay sameeyaan waxa soo gala macalinka quraanka wuxuu bixiyaa waxa la siiyaa cashirtii oo xalaq kale la meeriyay qofkii baal loo meeriyay qofkii bag loo meeriyay qofkii suurad loo meeriyay uu ka baxa wuxuu inta raacsiyaa marka kadib markii laga saxo waxa jira warqad la saxo oo lagu loo saxo ardayga intuu gafay. Injineer Ismaan Maxamuud Sahal waxa uu ka mid yahay dadkii gacanta ka geystay dhismaha macadkan ayaa waxa uu ka sheekeynayaa sanadii bara carruur ku xifdisay quraanka kariimka ah isagoo taasi sheegay in ay tahay mid aad u farxad gelinaysa. sidoo kale waxaan aad ugu mahad celinayaa ardada iyo macallimiinta goobihii aan booqanay sida macadka ama kollejka Ceelguula midka Wisil midkan hadda aan joogno Ceeldibir oo dhamaantood aad nalo kugu soo dhaweeyay aad iyo aadna aan ugu faraxnay yani barnaamijyada diiniga ah ee ka socda culumta diiniga ah oo carruur yar yar oo 9 sano jir ah oo ahkaamtii tajwiidka xifdisan quraanka kariimka ah xifdisan علوم kala duwan oo ahadiis fiqi tarabiya adkaar dhammaan isugu jira qaybo kala duwan oo diinta islaamka kamid Cabdiraxmaan Soomaali gacanta anigu u dhiibay xagagarkan waan bakaraadsho astaanteedu waa mid gaariya